maamulka sare ee dugsiga Turkish Macaarif ee magaalada Hargeysa ayaa maanta shaaciyay arday dhamaysatay dugsiga oo ay u dirayaan jaamacado ku yaala wadanka Turkiga. Sidoo kale mas'uuliyiinta dugsigu waxay ka warameen tirada ardayda ay sanad walba u diraan jaamacadaha kala duwan ee wadankaasi Turkiga. Maxamed Axmed oo ka tirsan maamulka dugsiga Turkish Macaarif iyo mas'uuliyiin kale oo kamid ah dugsigaasi ayaa ugu horeynba ka waramay ardayda dhamaysatay dugsiga ay sanadkan u dirayaan jaamacadaha kala duwan ee wadankaasi Turkiga. سوى أكتين سكول كان هيدا تركيش معارف وحي لو ريكتي لبدي ديسمبر 2017 وقت جاس أي تمد هيدو وحي ديرتي لبد دفعات إن شاء الله سنة كنا وحي ديرت أنتا دفعات ككوان تطباطا سنة كي 2017 تركيش هيدا تركيش معارف وحي ديرتي أرضي لان تطبيطوان أرضي ولبا كمد أيهين فول سكولرشيب سيدو كله sanadkii 2018 hay'adda Turkish Macaarif waxay dirtay 37 arday oo 15 kamid ah ay ahaayeen full scholarship inta kalena waxay ku bixi jireen program loo yaqaano YOS program amba YOS exam sanadkan insha Allah waxaan ku rajaynahay inaan dirno dhammaan ardayda sanadkan ka baxaysa iskuulka oo dhan 70 arday systemka ay ku baxaan ardaydu hadaan in yar idinka yar sheekayo amba in yar idin sharxo waa laba programka koobaad waxa loo yaqaan YTB amba hadii aan English ku sheegna amba af Soomaali waxbarasho bilaash weeye Turkish scholarship weeye sanad kasta ardayda iskuulka ka tirsani waxay dhamaantood apply gareystaan programkaas iyagoo ka apply gareynaya meel lagu talagalay oo internetka ah sanadkan dhammaan ardaydu way apply gareeyeen 2019-2020 waxaana helay 18 arday ayaa first evaluation-kii ku soo baxay insha Allah imika waxay sugayaan qaybtii ugu dambeysay ee soo dhajinta ardayda hay'adda iskuulkan dhigata waxay jaanisyo badan u helaan inay especially ardayda form 4-da ay waxay jaanisyo u helaan inay tagaan Turkiga oo jaamacadahooda ama heerkooda waxbarasho ee jaamacadeed ay ku dhameystaan waxbarashooyinkooda jaamacadaha Turkiga. iskuulka Turkish Macaarif waxa uu leeyahay laba qaybood oo ah qayb daily ah oo ardaydu rawaxaan iyo qayb boarding ah oo ardaydu chief ay u leeyihiin qaybtaasi dailyga ah qaybta boardingka ardaydu waxay dhigtaan koorasyo extra waa loogu dhigaa gelinka dambe gelinka horena waxay ku qaataan waxbarashadooda ardayda normalka ah ay waxbarashada la qaataan manhajka iskuulkan lagu dhigaa oo manhajka Soomaaliland iyadoo ay dheer yihiin koorasyo Turki ah sidoo kale ay dheer tahay luqadda Turkiga sidoo kale ay dheer tahay maadooyinka IT-guna ay dheer yihiin waxay iskuul ardayda form 4-da ee iskuulkan ka baxa ay chance u helaan inay laba shahaado qaataan shahaadada dawladda Soomaaliland iyo sidoo kale diblomada hay'adda Turkish Macaarif taasi oo loogu xareeyo jaamacadaha dalka Turkiga. ugu dambeyntii Maxamed oo madaxweynaha dugsiga sare ee Turkish Macaarif ayaa waxa uu sheegay and we are sending graduate students to Turkey every year. Last year we have waxaan u dirnaa sanad kasta jaamacadaha Turkiga arday ka baxday dugsiga sare ee Turkish Macaarif ayuu yiri gudoomiyaha dugsigaasi sare ee Turkish Macaarif waxaanu sidoo kale sheegay in sanadkii hore ay ka baxeen dugsigaasi 40 arday oo 37 kamid ah ay wax ka dhigtaan jaamacadaha kala duwan ee wadankaasi Turkiga 40 graduates and alhamdulillah 37 of them now they are studying in Turkey. University education for further education. Inshallah, there will be possibilities to study even PhD and master and PhD and above. waxa uu yiri ardaydaasi waxay wax ka bartaan jaamacadaha ugu heerka sareeya ee ku yaala wadanka Turkiga iyagoo ka qaata aqoonta kala duwan ee ay bixiyaan ilaa iyo inta ay ka gaarayaan shahaadada PhD-ga ayuu yiri Maxamed oo madaxweynaha dugsigaasi sare ee Turkish Macaarif dugsiga Turkish Macaarif ayaa sanadadii ugu dambeeyay ardayda dugsigaasi dhigata ka caawinayay inay helaan waxbarasho dibadeed iyo sidoo kale shahaadooyin la aqoonsan yahay Maxamed Shokar Honkable TV Hargeysa.